Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan kusoo gudbinaa waraaqyadii Thomas Hudson kuna soo dhawaada. Afkaarteedu waxa ixtiraam leh oo aan isu hoolin horumarinteeda. Ma jiraan wax qiimaha qofka kor u qaadaya sida doorsoonidoo kale. Naftaada oo aad u deymi badisaa waa sidii jidhkaaga oo jimicsida u badisid. Libintu boqolkiiba waa hal wahibo, boqolkiiba 99 waa dadaal. Mid ka mid ah siraha ugu horreeya libintu waa inaad naftaada aaminto. Suuragal maaha warqad imtixaan oo liidata inaad aayahaaga qoondeyso waqti waraasamaalka qof kastaba. Waana hantida lama huraanka tahay inuu qof kastaba inuu khasaara ka ilaaliyaa. Xilliga nolosheeda ugu dhibaatada badan tahay ugu adag tahay waa xilliga ana garaadkayga aan ku mashquulin inaan fakaro. Waxaan si dhaba ugu faanayaa inaan ixtiraacin hub wax dila. Ma jirto fursad ka maran dadaal iyo shaqo. Haday jirtana waa riyaduna waxay fursad u tahay dadka hordoon. In badan oo dadka fashilma ma garanaya libinta ay ka rajo dhigaan inta yar ay u jireen. Mar kastaba waxaa jira qaabkaan wax u wado qaab ka wanaagsan iyo dadiilooyinka waaweyn waxay sameeyeen dad waaweyn. Aniga hooyaday ayaa iga soo saartay ninkan aan imika ahay. Way ixtiraamto, way igu kalsoonaatay. Sidaan wax u ixtiraacdo waxa kugu filan inuu garaadkaagu dhisan yahay. Weliya ma fashilmeen ee waxaan helay 10,000 oo qaab aanay wax u shaqaynin. Ma jiraan waxa aan kadis u ixtiraacay ee wax walba waxaan ku gaadhay dadaal iyo dhidid. Waxaan leeyahay saaxiibadooda aan ku bedelayn boqorada. Inaad tallaabo hore u qaado waxa ka sii wacan inaad tallaabo u qaatay dhanka saxan. Qiimaha fikradda wuxuu ku xidhan yahay habba sida loo adeegsado. Hantidaadu waa waxaad adigu tahay ee maaha waxaad aad haysatid. Shaqada ugu wanaagsan ee jidhku waa inuu u xambaarsado garaadka. Waxaan wax walba ka bilaabo halkii qofkii ugu dambeeyay uu ka hoolana u dhigay. Dooduhu waxay sameeyaan qof diyaarsan, qoraalkuna wuxuu sameeyaa qof ka fiirsi badan. Ma jiraan qaab oo aadamuhu fakar uga fakan karo aadisaadaad waxaad ku fakaraysaan.